la fuliyo maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha February 2022 qorshihii ay soo dejiyeen guddiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Hirshabeelle wuxuu ahaa maanta in la sameeyo diiwaangelinta murashaxiinta iyaga oo sameeynaya tilaabooyinkan marka hore inay warqadda dambi baarista ka soo qaadataan xafiiska dambi baarista ee gobolka kadibna ay yimaadaan ayagoo warqadaas wato u yimaadaan guddiga doorashooyinka foomka ay buuxiyaan lacagta registrationkana qofka uu soo shubo marka uu warqadda soo helo oo dambi baarista inuu lacagta soo shubo kadibna foomka uu buuxiyo si loo siiyo shahaadadii uu tartanka ku gali lahaa arrintaas anoo ka duulayo iyo ballankii maanta la sameeyey iyo warqaddii oo soo saaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle gudoomiye Axmed Xasan Diini oo uu ku faafiyey oo uu leeyahay wax kursiga nambarkiisa uu yahay 86 doorashadiisa waxaa la qabanayaa berrito oo axad ah registrationkiisa iyo diiwaangelintiisana maanta oo ay 19 tahay ayaa la qabanaya hawshaas gudoomiye Diini waan wacay saakayda hore telefoonka wuu iga qabtay waxaan weydiistay meesha aan u doonanayo warqadda CID-da sababta oo ah mar hore aan la kulmay wasaga ayaa yiri anaga soo sheegi doono meesha aad aadaysid iyo meesha aad u doonanaysid waxa uu ii sheegay inaan warqadda u doonto dambi baarista gobolka xarinta gobolka oo ay ku dhex taalo wax si gaar ah loogu qoondeeyay oo hagaajinayso warqadaha dambi baarista ergooyinka iyo sidoo kale murashaxiinta u tartamayso golaha shacabka meeshii ayaan tagay waxaan u tagay xafiiskii oo cidlo ah wax jooga aysan jirin waan sugay si aan bal u xaqiijiyo in maxaan ku raadayay shaqo ay ka socoto waxaan sugay muddo aad u dheer goor dambe waxaa yimid wiil dhalinyaro ah wuxuuna ii sheegay isaga inuu shaqada xafiiskan ka shaqeeyo laakiin shaqada uu qaabilsan yahay ay tahay inuu ergada u sameeyo hadduu alla ku sii ogol yahay warqadaha dambi baarista